Fadlan sabskraib saar haddaad ku cusub tahay channelka gambaleelka furo si aad ula socotid wax kasta oo ku saabsan ciyaaraha markaynu saa u soo gelino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii wararka ciyaaraha. Maanta insha allah waxaa dhaci doontaa ciyaar weyn oo u dhexeysa labada kooxood ee Chelsea iyo Liverpool. Ciyaartan oo ka dhacaysa magaalada Istanbul. Ciyaartan oo u dhexeysa labadan kooxood oo soo kala qaaday labada koob ee kala ah UEFA Champions League iyo Europa League. Haddaba kulankan weyn ee labadan kooxood ee waaweyn u dhexeeya ayaynu falanqeyn yar ku samayn doonaa. Kooxda Chelsea oo haatan u muuqata inay tahay galab kulankeedii ugu dambeeyay ee la ciyaarto kooxda Manchester United-na 4-0 lagu dhuftay ayaa haatan wajahaysa kooxda kale ee xooga badan ee Liverpool. Kooxda Chelsea dhibaatooyin badan ayaa haysta oo ay ka mid yihiin tababarihii oo ka tegay hore, halka uu yimi tababaro cusub oo ku cusub xirfadda tababarnimo. Tababarahan hore oo ahaa legendkii hore ee kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa haatan kulankiisii ugu horeeyay Premier League 4-0 lagu dhuftay. Dhanka kale, kooxda Chelsea waxaa si lama filaan ah uga dhaqaajiyay maalintii ugu dambeysay ee deadline-ka transferka suuqa kala iibsiga England David Luiz oo ahaa daafacoodii dhexe, halka horena uu uga tegay Eden Hazard oo ahaa weeraryahankoodii weynaa. Dhanka kale, dhibata ugu weyn haysta waxay tahay suuqa kala iibsiga oo laga ganaaxay kooxda tan 2 sano oo xiriir ah. Kooxdan Chelsea haatan waxaa dhaawac kaga maqnaan doona kulankan Kante iyo Wilson Odayo iyo William. Kooxda Chelsea maaha. Kooxdan waxay ahayd koox cajiib ah oo shuba oo daafac adag oo dhexda adag oo weerarkoodu bila yahay, balse sanadahan ugu dambeeya waxay noqotay kooxdan gelab. Dhanka kale aynu eegno kooxda Liverpool oo taariikh weyn ka sameysay 2005 markay ku qaadeen gegida Istanbul championkoodii 5aad kana qaadeen kooxda AC Milan, taas oo ay 3 gool intay kaga horeysay kooxda AC Milan ay rogaal celin la yaab leh kusoo sameeyeen daqiiqadii ugu dambeeyayna 3 goolba ka bareejeeyeen. Markaas oo ay kooxda Liverpool ay rikoodhayaashii ku qaaday championkaas oo haatan qalbigooda ku yaala jamaahiirta Liverpool meel weynna kaga yaala, ayaa haatan mar labaad dib ugu noqonaya gegida Istanbul iyagoo championkii u xigay qaaday oo 6aad 2018. Haatanna waxay waajahayaan kooxda Chelsea oo ay doonayaan inay Super Cup-kana kaga sii darsadaan sanadkan koobkoodii 2aad. Kooxdan Liverpool oo ah kooxda ugu adag sanadkii hore Yurub ayaa haatan waxay u muuqataa inay ugu dhowdahay iyadu inay qaado Super Cup-ka, waayo kooxdani waxay soo jiidhay kooxihii waaweynaa ee Barcelona, Bayern Munchen. Dhanka kale, ciyaartan taariikhda weyn ee kale ku jirta waxay tahay in FIFA ay u ogolaatay gabadhii ugu horeysay ee sirwala ka noqota ama garsoore ka noqota ciyaar weyn oo ah final. Ciyaartan Chelsea iyo Liverpool ee Istanbul ka dhacaysa waxaa garsoore ka ah gabadh lagu magacaabo oo ah haweeneydii ugu horeysay ee noqota sirwala final qabata, weliba kooxo waaweyn u qabata. Waa taariikhi, waxaana dhici karta inay kulamada waaweyn ee Premier League iyo Champions League ay qabtaan dumar sanadkan soo socda, waayo waa tijaabadii ugu horeysay ee laga qaadayo. Gabadhan oo qabatay koobkii haweenka ee ka dhacay dalka Faransa, koobkaas oo ciyaartii ay qabatay Holland iyo u dhexeysay Ingiriiska. Iminkana dhanka iyo suuqa kala iibsiga, kadib markii kooxda Barca madax ka socota ay magaalada Paris Saint-Germain ay tageen ay kula kulmeen madax ka mid ah kooxda Paris,
halkaas oo ay kusoo fashilmeen labada madaxba inay ku heshiiyaan madaxdii ku heshiiyaan Neymar dib u noqoshadiisa inuu ku noqdo rajadiisa ah inuu ku noqdo kooxda Barcelona. balse dhanka kale kooxda Real Madrid ayaa dalab cusub iyaduna u gudbisay iyadoo ka jawaab celinaysa dalabkii Barcelona ay u gudbisay, kaasoo ay ku doonayaan 3 ciyaaryahan inay ku bedeshaan Neymar. 3 ciyaaryahan ee la kala yiraahdo Marcelo iyo Varane iyo Isco, 3 ciyaaryahan ayay u soo bandhigtay kooxda PSG inay kula wareegto Neymar. labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid oo xifaaltan weyn ka aad ugu tartamaya ninka la yiraahdo Neymar Brazilianka, halkaasoo kooxda kale doonaysa inay ka garbiso kana hesho. Real Madrid oo aad ugu hami weyneed inay la soo wareegto Paul Pogba ayaa ka quusatay markii uu xidhmay Premier League suuqa kala iibsigiisa, balse hadda xooggeeda waxay saaraysaa Neymar oo ay doonayso inay kula soo wareegto 3 ciyaaryahan. Xiddiga reer Portugal ee u ciyaara kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes oo aad loola xiriirin jiray kooxaha Manchester United iyo Tottenham ayaa haatan aad ugu dhow kooxda Inter Milan, goordhowna lagu dhawaaqi doona heshiiskiisa. Dhanka kale, xiddiga reer Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa dalab u soo dirtay kooxda Bayern Munchen balse wuu diiday. Xiddigan oo qayb ka ahaa heshiiska Neymar iyo PSG ay doonaysay kooxda Barcelona inay kula soo wareegto Philippe Coutinho iyo 100 milyan. Xiddiga reer Brazil Neymar ayaa haatan dalab degdeg ah waxa uu soo diray kooxda Bayern Munchen balse uu ku gacan saydhay oo xiddigu ma doonayo inuu ka ciyaaro Bundesliga Jarmalka. Fadlan subscribe saar haddaad ku cusub tahay channelkeenan, gambaleelka furo si aad ula socotid wararka ciyaaraha.